xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu caleema saarayay caaqil cusub oo ay yeelatay beesha bihii dareys caaqil maxamed ciise sugule biryar xafladda caleema saarka caaqil maxamed kasoo qayb waxa ay ka dhacday degmada Awrbogays ee gobolka Sool waxaana kasoo qayb galay wafuud ka kooban cuqaal siyaasiyiin dhalinyarada hidaha iyo dhaqanka wafuudan oo ka kala timi gobolada dalka ugu horeyna waxaa hadalka qaatay oday cabdirasaaq maxamed dalmar waxaana uu yiri cabdirasaaq maxamed dalmar ilaahay kala siiyo shirkooda laga duubo halkan xafladan maanta aan shubayna maxamed ciise sugule waxaanu ugu shubaynaa caana ilaahay iyo ubadkiisa ilaahay iyo inta Soomaalida islaamka ay joogtaan ugu shubayna kaasaan waxaan ugu shubayna beesha la yidhaahdo bihii dareys caaqil bihii dareys meel kasta baa joogto daliya dibaddeed inta areeraha ka timi hawshaan loogu timi iyaduna way ku mahadsan tahay waxaan leeyahay ilaahay khayr ilaahay isku xidhan laga siiyo ilaahay fidmada wixii fidmo wada iyo wixii duca wada ilaahay hana wadax saaro insha allah kii isku kaaya xidhi lahaa baanu ka rajo qabnaa inuu noqdo meel kasta wala jooga ugu daraya maxamed sugule maxamed ciise sugule maanta laga bilaabo waa caaqilkii biitres waa caaqilkii daarood iyo isaaqba mid kastaba in kasta ka gaadhee naaficeeda ay ka heli lahayd annana waa la shaqaynaynaa waan la shaqaynaa caaqilka waxaan leeyahay ka ku doortay iyo ka aan ku dooran intaba caaqil baa u tahay dadweynaha sharafta leh mudooyin iyo mudanayaal iyo mudooyinba waxaa ku salaamayaa salaada muslimka waxaan ilaahay ka baryayaa caashubka sharafta leh ummadda faraha badan ay ka soo qayb gashay sharkeeda ilaahay inuu iga nabadgeliyo khayrkeedaba ina siiyo dadweynaha halkan isugu yimi waxay ka kooban yihiin gobolka Sool iyo Sanaag dadkii ku noolaa weeyay inta u dhaxaysa maxamed ciise sugule biryar ku caano shubayno waxaan taariikhdan u sheegayaa dadka bihii dareys waa caaqilkii ugu horreeyey ee lagu caano shubo ee maxfalkaas oo kale loo qabto yaad baan ugu mahadcelinaynaa كذلك هاي الكلام حتى تغشيان كويسين وراد وشاي انت واحد وقت بيا عاقلك محمد عيسى سجله بيا ما تاجا كدعي واحد اللي يادو توقع اللي سكوجيني بيشان او يطمنات سو طمنات تبيو تبكي laga bilaabo waa caaqilkii bihii dareys maxamed ciise sugule biryar inaynu u doorano nabadoon yaalayaxmi nabadoon bihii dareys wuxuu xukumaa jiilali iyo kutarad inta u dhaxaysa in badan wuu bannaanaa oo dhaxan iyo dabayl nagaga soo dhacasay nabadoonkii hore u dhintay waxaa dhahayay tusiismayaal aan lagu caano shubin ugaaryahan waa ku maalnay waa doorannay waa taakulaynay tadaawarasa iyo tadhegaysadasa iyo tayaarkasa anaa garaadkaa maxaa ciise sugule baanu doorano nabadoon bihii dareysaa dabadna waan xiriirka waa u dirayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi waana nin deeq badan waana nin deeqsiya darmaya markaa la sii dardaarmaya wixii uu leeyahay gaangaar bilbelo kilkaas wuxuu saaran yahay deeq ugu sheegaya ma bilbelo qorigu karigi ma ugu dambeyntiina waxaa hadalka qaatay caaqilka cusub maxamed ciise sugule biryar isaga oo u mahad celiyay dhammaanba wafuudii ka soo qayb gashay xafladda caleema saarka waxaana uu ballan ku qaaday in uu sinaan iyo cadaalad ku shaqayn doono بدري محمد بدي بري ملك تاجوله صلاة إسلام وكسرانيا عدالة واحد يراهون واحد يجتمع ما كان
cadaalad waayo sida hawsha kale waxaa la yidhi سنان كذا شكايو مدلمو قفوا إلى حقوقنا ولا يهون هلا cabdilaahi maxamed kaarshe cabdilaahi asad TV-ga qaranka Soomaaliland Awr Bogays